موضوع حيرارك مركز لقى هذه الصحافة سوماليلاند أفرق قضوب بيستول تاجي دونا تكوبات وحويان قرما حير كيور بهين تسبرت سوماليلاند تعصب كوسا قال بقول كوبيسا عشان كيف كدم بيه أن iyo faalalka ama fakaaga ka dhashay fulin la'aan xeerka ah oo halkaan galdaloolooyin ka soo baxay iyo sidoo kale taa maxaa ka dhashay maxaa imika socda xagee loo socda xagga loo socda ma tahay meel u muuqata in la mahadinayo mase jiraan wax ka dhalan kara inahaas ay dul taagaya xeerka Somaliland waxa la aasaasay Somaliland ama xeer loo sameeyay warbaahineed haba weyd ahaado markii Somaliland ta cusub ee 1999 markii la soo noqday jamhuuriyadda Somaliland 12 sano oo kaliya ay jirtay waqtigaasi ayay Somaliland xeer warbaahineed yeelatay muddo 14 sano abay imika laga joogaa 15 sano imika marka la galayo 15 sano 15 ka sano hal yaabin haddaan idhaahdo inta ogaalkay ah 4 jeer oo kaliya ayaa xeerka la dabaqay oo maxkamad la geeyay bal maxkamadaha qaarkood ma yaalaan xeerkaas lama fulin lama daadajin laguma garsoorin oo laguma dhageysan dacwadaha saxaafadda Somaliland bal qaarkood baanu geynay annagu maxkamadaha maxamuud cabdi jaamac wuxuu fadhiyaa haddii aanu bixin markhaatigaygu waa isaga berbera annaga geynay boorama annaga geynay hargeysa annaga geynay annaga marka la soo jaan ka hadlaya marka xeerka Somaliland maanta jira halkaas uu maraya maxaa caqabad ku noqday waxa caqabad ku noqday waxa la yiraahdo mala awaal ya aaminaad ay aamineen intuu saa qof u eegay galdaloolooyin baa jira marka lama isticmaali karo kan sunaha sharciguna waxa weeyaan ama baadida sharci ku dhisay sharci yaqaanadu way yaqaanaane xeer wuxuu galdaloolo yeesha marka la fuliyo haddii xeerkaasi la ansixiyo oo inta soo laga galdaloolo indhaha lagu arkay noqoto xitaa waxa ceeb iyo fadaxad ku tahay hay'adii dawladeed ee sameeyay markaas la fuliyaa kadib markii ka soo noqoto eedo ayanta lagu soo noqdo leeyahay galdaloolada soo noqoto aynu sameeyno taasi mar qura ma dhicin bal inta qaanad la iska dhigay baa la fulin waay inaan la fulin xeerka maxaa ka dhashay waxa ka dhashay afku furtay kabuhu la dul maray uu jiiday dhulku jiiday dhulku la dhacay erayada noocaas ee warbaahintu isticmaalayso oo aqoon runtii aanu sifir saarayo ayaa ka dhashay inaan la sameyn waxa ka dhashay in barasaab gobol jooga askarigii leeyahay ka ilaaliyo wixii adiga ku soo hujuuma oo amar u bixiyo raado ii xidha hebelna ii soo daaya hebel kale iska xidha in lagu amar ku taagleeyo wixii gacanta lagu hayay dawladuna ku amar ku taagleyso barasaab maayar ka soo bilow xildhibaan deegaan ilaa madaxweyne ayay keentay dhinaca kalena waxay keentay in saxaafadii ay u aabayeeli weydo qaran dawlad dhisme ummad isku hayn nabad wadajir iskaashi wax walba inay u aabayeeli weydo iyana waxay doontaa ay qorto halka maxaa ku dhintay marka dawladnimo ku dhimatay wadajir baa ku dhintay waxay soo ahaanshaa ku dhintay jamhuuriyad baa ku dhimatay anu saan u arko way imika maxaa socda marka soo koobayo imika wax socda waxaan anigu sidaan u arkayo waan ka raali gelinayaa cudurdaar ahaan haddii ereygaas adkaado waxaan caqli ku dhisnayn baa socda waxa socda waxa loo bixiyay xeerka saxaafadda Somaliland waan ka cudurdaaranayaa mar kale ciddii ku hawlaneyd haddii arrintaasi ay halkan fadhido xeer maaha waxa la wadaa haddaan idinla wadaago ama akhridaanna waa la yaabi doontaan ma qabo inay tahay mid la mahadinayo Faysal al-Sheekh bay la jooga wayab markhaati uu ka yahay inta indhaha ugu qabato xeerka 2004 la sameeyay dadkii sameeyay kamid bay haayeen haddii aanay xoogaa lahayn wuxuu ahaa xeerkaasi maantana galdaloolo 15 sano kadib u noqday shaad qof toshay nimankii wargeysada waqtigaasi haystay adeeraal lahada waan oranaya nimankii wargeysada haystay shaad ay tosheen buu xeerka maanta jira dhaliishiisu waa taa waxay tosheen warbaahin waxay u yaqaaneen press law bay bixiyeenba waxay u yaqaaneen kuwa la daabaco idaacad laguma talagelin waad garanaysaa in muddo gaaban lagu talagalay xeerkii Faysal al-Sheekh oo hor fadhiya iyo mas'uuliyiintii kale iyagoo xukuumadda ku jira oo anagu wali aan saxaafadii ku jirno anagu markaan la dhashay waqtiga gashay qaarkood uu kaga tagay wali fadhiyaan ay caqabad soo noqotay dhowr shir baan Faysal wada galay waxaan isku weydiinay war halkii wax ka qaldayn waxaan xeerkii lama dhaqan gelin xeerkiina mid kaafiya maaha mihnadii haddaba ummadi ma jirto haddii wixii shalay dhacayaan wax laga baranay xeerka maanta jira ma yahay midna wadaya ma qabo kan wali waa lagu kala socday haddii la fulin lahaa wax baa jiray oo aqli iyo cilmi iyo wadci jiray baa lagu dhisay ka maanta socdo ma arkin lagu dhisay qodobo kamid ah idin sheego qodobka 12aad qodobka 13aad qodobka 18aad qodobka 20aad 21aad ilaa 25aad intaas oo kaliya marka eegtaan wuxuu ka hadlayaa anuusan u arko cid wax maskaxdeeda ku jirta maanta ku salaynaysa jirta wuxuu ka hadlayaa ruqsad loo bixiyaa waxa maanta laga fikirayaa TV hebel baa ina dhibay
inaga qabtay ruqsadiisa wuxuu ka hadlayaa sidee ruqsadda loola noqdaa waxa maskaxda lagu hayaad garanaysaa in la qoray iyadoo maskaxda lagu hayo wargeysa hebel baa ina dhibay inaga caburiya anu waan saan u arko waayo wuxuu dhigaya mataqaanaa ruqsadda wargeyska sanad walba marba la cusboonaysiinaya bointiska waan akhriyi karaya laakiin waqtigaan igu saamaxayn baa filaya waad la wadaagi karaya wuxuu dhigayaa ruqsadda wargeyska sanad baa lagu bixinaya ma xuma wax walba waqti buu leeyahay waxaa ku jira xisaab maaliyadeedkaad wargeys ku furayso eed tv ku furayso eed maxay ku furayso waa inaad soo gudbiso halkii kaa soo gashayd ku timid dabeeto aan guddi u saarnaa la baadhaa haddii lagu qanci waayo miisaaniyadda hawshaad ku furaysa inaad tahay in la joojiya waxaasoo dhan waxa isku fuuqsanayo qodobada ku jira oo waynu ka doodi doonaa adeer qodobada waxaa ku jira waana ku akhriyi karaya qodobada waxaa ku jira la yaab kale ee aan isleeyahay dal dimuqraadiya iyo dawlad jirta kuma socon karayso waxa weeyaan in la yidhaahdo fakaag la sameeyo innagaa dictatorka abuurna runta markaynu isu sheegano fakaagga la samaynaya waxa weeye in la yidhaahdo haddii shuruudaha soo gudbisay xeerkan ku jira aan ku qanci weyno oo sabab la sheega ay jirto waa lagu diidi karaya fakaaggaasi wuxuu bixinayaa hadba cidda talada joogtaa markaa hadba cidda wasaarad joogta hadba cid guddida joogta in la yidhaahdo maxay umaan garan sabab la-aan sharciguna madmadow ma galo marka laga hadlayo mabaadida sharcigu madmadow ma galo ambigutyga waxa la yidhaha waa laga ilaaliyaa waxaa qabo waxaa qaban waxaa faahfaahin u baahan xeer baa jidaynaya la yidhaha kan waa xeerkii dastuurka ka soo dheegmay qodobka 12 dastuurka Somaliland ee uu jidaynayay xeer baa nidaamin doona aniga waxay la tahay haddii su-aashadan noqonaya waxa weeyaan xaggee loo socdaa waxaa loo socdaa xeerkaasi haddii sidaa lagu wado aniguma qabin u saxiix sorry waxaan arkay waa daraaf la wadaan arkay af Soomaali saxa kuma qorna bal ee meelaha qaar sharciyadu indhaha aad u aragtaa magaca Somaliland qodobka koobaad ee dastuurka Somaliland jidaynay sidoo uu qoran yahay si ka duwan buu qortay taas waa technical waa arrin farsamo la saxi karayo laakiin mabaadiida xeerka ku qoran ma qabin inuu yahay kii dal dimuqraadiya samayn lahaa haddii qaladkii dhacay waqtigii anigu aan xeerka hore akhriyay la sameeyo oo maanta cidda joogta ka fikirto xuuta gudoomiyaha Solja adiga yaan ku qabanay halka waafaja duulaado gudoomiyaha Solja bari uu ka tagay Solja isagoo waahan joogu imanaya isagoo waahan jooga la xidhaya deeto xuuta isaga mahadin doona waxaan qabaa yaanu noqon xeer ku shaad la tosho oo cid la leekaysiiyo hal la furo hal looga fikiro konton sano inuu shaqeeyo xeerku konton sano kadib ay nagu soo noqoto dal dawladdiisu dabeeto inagoo u furan oo u dhammaystiran aynu samayno arrinta kale aan ku daraya waxa weeye xeerka un laha guddida anshax bixinta anu waan u baahanahay waanan qaba 100% saxaafadu ma jirta safeexad baa jirta anu eragaasan isticmaal safeexad baa jirta youtuberaa jira dad badan in la qabto u baahan baa jira nafteedu hadday noqoto aniga in la qabto diyaar baan ah laakiin bedelkeeda ma ogolaay anigu shakhsiyan in dhinaca kale awood u yeelatay inay qabato guddi anshax baa jira guddi wuxuu xeerkan jidaynaya hadduu sidaa ku dhaqan galo la yidhaahdo guddida anshax marinta iyo guddida golaha warbaahinta waxa la yaab leh golaha warbaahinta laba saxaafadda madaxa bannaan ka imanaya xeerkan siduu dhigayo shanta kale wasaaradda faafinta soo magacaabaysa marka wasaaradda faafintaas qaybisay dee xaggana waxaan ugu tegaya wasaaradda faafinta kama hadlayo cabdiraxmaan cabdilaahi faarax gurbarooqo waa wasiir waan ogahay waa nin fahamsan qoraaya laakiin waqtigan ka hadlaya waa 20 sano kadib Somaliland say noqonaysaa 20 sano kadib saxaafaddu say noqonaysaa maha waqtigan aan joogno 20 sano kadib sawiro barkhada mucangaga yimid wasiirka warfaafinta ah wuxuu helay xeerka maanta waxaa jidaynaya ma kala anba baxayna annaga iyo inaan ka soo kicay warbaahinta soo galaya marka taan ka hadlaya ta imika joogta ma aha shan markaan anigoo saxaafadu mucangaga wasiirka warfaafinta tusaalahaan aan noqdo maybe siyaasadda inaan geli allahu aclam shanna aan haysto guddidii labada qofna meel ku xidho wargeyskan doona waxaan doonaan ka yeelaya tv-gan doona waxaan doonaan ka yeelaya waan qabaa Somaliland warbaahinta laga qabto Somaliland cadow kale ma leh Somaliland cadowgeeda koobaad waa warbaahin anaa qaba oo ka tirsan laakiin taasi ma jidaynayso in la jideeyo xeer ina caqabadaynaya oo dunida inaga xidhaya waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay barkad maxamuud kaariye